silsiladii milgiye ismaandhaaf qaybtii sagaalaad oo hadda la soo saaray miiska wada hadalka ee midnimo qaran films ayaa waxaa codkiisii tulmoona inoogu soo tubiyay fanaanka luuqdiisa lala tacajabay ee sanadka dambe fankiisu xiisaha dheeraadka ah leeyahay xasan cabdi xuseen xasan yare xasan oo silsilada wax ka bedelay hal xidhaalo iyo su'aalo in la furo u baahanna meesha soo dhigay ayaa yidhi geed mug weyn oo lahayn meeris laga hargala dayaxaan muuq lahayn mulkigaan dooris gelin wafti dumar hadduu jiro wuu noo macnayn erayada dhegihiinna soo gaaraya waxaa mawjadihiisa suugaanta nooga soo ixtiraaqay abwaanka weyn ee suugaantiisa la hulin layahay abwaan baadiye abwaankan oo ahaa abwaankii silsilada seeska u jeexay ayaa mar labaad ku soo laabtay garoonka isaga oo xididada u jaray abwaan jamaal cali firin isla markaana xabsiga u taxaabay abwaan baadiye oo suugaantiisii dhumucda lahayd dumarka dhulka kula dhacay ayaa mar kale yidhi xantu waa maadi dumar waa masiir xaawalay midutuushaa tilmaantay magaya ragguye matalaadaad wadaan maanku wuu diidan yahay maxamed iyo anwar tooti oo ah macallimiintii silsilada seeska u jeexay ayaa xusid mudan waana sakiil kacsoo idin leh dumarkay fallaadho ku foorartaa tilmaantay magayo ragwe matalaadaad wadaan maanku diidan yahay caafimaada xasaarabteen milgiyo xishod suuqanaad meeraysaan mawraan yaa ka dhig miska hadal ku yaal meesiyaa kuugu daare
سري ملقاح اللي ما نعدي وشبيلين تيريان مقام لوغدي عدي موروغا تاهي ومسالا كالي تانو موسنا مسيحي وهذا ما ضاب شتا بيسان هداه مهوران كيساو وجد حوق لابرياهن إذن من دورسه مبدأ غاضتين ومرحلة قراعة وينو لهين ميرس لاغا حرقالو حلالي هالحلالي ضيحان موق لهين ملكي غان دورس قالين حلالي هالحلالي نفتي دومار هدو جيرا ونوم معني وينو لهين ميرس لاغا حرقالو حلالي هالحلالي ضيحان موق لهين ملكي غان دورس قالين حلالي هالحلالي نفتي دومار هدو جيرا